kani waa muuqaalka ka yimid magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug oo xalay ay ka dhacaysay xaflad lagu soo dhaweynayay wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka iyo sidoo kale xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka kuwaas oo shalay yimid magaalada Dhuusamareeb waxaana sidaan qoobka ciyaarka iyo sidoo kale damaashaadka ee farxadda uga muuqata waa madaxweynihii maamulka Galmudug ee waqtigiisu dhamaaday iyo golihiisii wasiirada kuwaas oo looga fadhiyay xal u helidda xiisadaha colaadeed ee ka taagan deegaanada Galmudug iyo sidoo kale dariskooda. deegaanada Galmudug waxaa ka taagnaa bilihii la soo dhaafay dagaalada sokeeye u dhaxeeya dadka reer Galmudug sidoo kale waxaa taagnaa dagaalo u dhaxeeya dadka reer Galmudug iyo sidoo kale beelo ku abtirsada maamulka Puntland kuwaas oo shalay oo ugu dambeysay deegaanka Jecboor ay diriir ku dhex martay maleeshiyaad ka soo kala jeeda beelaha Galmudug iyo Puntland kuwaas oo ay dad ku dhinteen waxaana xala aaska dhalinyarada reer Galmudug iyo Puntland ka soo jeeda ee aan la ogeyn sababta ay ku dirirayaan oo yaala uu madaxweynuhu sidaan uga dheelayay xarunta madaxtooyada ee looga arrimiyo dadka reer Galmudug isla markaasna ay ka sugayeen in ay ka timaado xal u helidda xiisadaha ka taagan galbeedka gobolka Mudug taa bedelkeeda madaxweynaha iyo tiimkiisu waxay dheelayaan qoobka ciyaar iyo sidoo kale farxadna wajiyadooda ayay ka muuqanaysaa mana u muuqdaan kuwo ay u yaalaan dhibaatooyin ay ugu horeeyaan dhimashada dhalinyarada reer Galmudug ee aan la ogeyn sababta rasmiga ah ay ku dhimanayaan ama ay ku dagaalamayaan. bishii Abriil ee sanadkan gabagabada ah ayaan bartayda Facebook waxaan ku soo qoray warbixin ama xog aan ka helay xubno ka tirsan saaxiibada madaxweynaha taas oo tilmaamaysay in madaxweyne Axmed Cabdikaari Qoorqoor oo muddaxileedkiisu uu dhamaaday iyo sidoo kale saaxiibadiis ay dejiyeen istiraatiijiyad la yiraahdo nafiska siyaasadda kaas oo ah in beelaha reer Galmudug dhexdooda laga abuuro khilaafaad iyo sidoo kale colaado sokeeye sidoo kalena maamulada deegaanada iyo degmooyinka xilalka laga qaado si dadku ay ugu mashquulaan arrimaha dhexdooda ah sidaasna ay madaxtooyada iyo sidoo kale xubnaha siyaasiyiinta ay ku helaan nafis siyaasadeed isla markaasna ay ku sii cimri dheeraysan karaan muddo xileed la'aanta ay ku joogaan deegaanada Galmudug. arrintaasi xal ayay soo ifbaxday kadib markii madaxweynaha iyo golihiisii wasiirada ugu muhiimsanaa iyo sidoo kale xubno siyaasiyiin oo dowladda federaalka ku matala Galmudug ay ka soo muuqdeen qoobka ciyaarka iyo sidoo kale damaashaadka xilli ay dhimanayaan dhalinyaro reer Galmudug taas oo aan la ogeyn sababta rasmiga ah oo ay u dagaalamayaan isla markaasna dhiigooda uu ku baxayo. maamulka Galmudug waxaa looga fadhiyay xal u helidda xiisadaha colaadeed ee deegaanada Galmudug magaalada Dhuusamareeb darafyadeeda waxaa ka baxaya dabka u dhaxeeya beelaha walaalaha ah ee reer Galmudug ee halkaasi wada dega sidoo kale galbeedka gobolka Mudug toddobaadyadaan waxay u ahayd maalmo colaadeed waxaana deegaanka Jecboor ee galbeedka gobolka Mudug ka taagan xiisad colaadeed oo u dhaxaysa beelo ka soo kala jeeda Galmudug iyo Puntland si gaarana magaalada Saxqurun iyo sidoo kale Galdogob oo daris ah. madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni shalay waxa uu ka hadlay xiisadaha colaadeed ee ka taagan galbeedka gobolka Mudug waxaana uu tilmaamay in xiisadaas la joojiyo isla markaasna la ganaaxo lana ciqaabo cidii jabisay xabad joojinadii iyo heshiisyadii horay beelahan ay ugu gaareen magaalada Gaalkacyo taas bedelkeeda dhiga Galmudug ee waqtigiisu dhamaaday lagama hayo fariimo la xiriira joojinta xiisadaha colaadeed iyo sidoo kale dhibaatada dadka reer Galmudug iyo Puntland u dhaxaysa waxaana xalay farxad iyo damaashaad xaflad ay ka muuqanaysa uu madaxtooyada kula qaatay xubno siyaasiyiin iyo sidoo kale golihiisa wasiirada. arrintaani ma tahay mas'uuliyad mise waa mas'uuliyad dar